kulankan ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ayaa ka dhacday howlka shirarka ee hotel Kismaayo ee magaalada Kismaayo. Kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa in la isku xogoreysto waxyaabihii ka qabsoomay wareegtadii ka soo baxday xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha 29kii bishii aynu soo dhaafnay ee la xiriirtay khilaaf ka dhacay koonfurta magaalada Kismaayo oo dad walaalaha ku dhex maray muran ku salaysan dhul daaqsimeed iyo cilbiyoodyo ku yaala duleedka magaalada Kismaayo. Intii uu kulanka socday ayaa waxaa talooyin la xiriira sidii loogu gudbi lahaa dhibaatada dhanka dhulka goobta ka jeediyay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka. Afhayeenka salaadiinta Jubbaland ugaas xiri oo kulanka ka hadlay ayaa soo dhaweeyay kulanka ay wasaaradda soo qaban qaabisay isagoona sheegay in xaaladda deegaanada uu muranka ka taagnaa yahay haatan mid wanaagsan. waxaa aad iyo aad u mahadsan ilaahay weynaa kadibna wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka arrintu noo soo jeediyay waa isla qaadanay dhib ma jiro. salaadiintii meesha ka hadashay ee meelaha cadab ceeleedkana waxay yiraahdaan wax dhib ah meeshii kama jiro waa la fiican yahay barina waa la soo noqon doonaa. marka maalin walbaba waxaan wasaaradda ka codsanaynaa dadku waa inuu isguubaabiyo wax isu sheego. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland ahna kusimaha wasiirka oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in wax badan ka qabsoomay kulankii ay la qaateen odayaasha dhaqanka iyo digratadii ay soo saareen horaantii bishan. waxa uu geesta kale wasiir ku-xigeenka beeniyay wararka sheegaya in muranka dhulka la xiriira dhex maray laba beelood. waxa inoo cadaatay inay wax badan qabsoomeen, inay xaaladdu nabad tahay, inay markii kadib waxba aysan dhicin, inuu isdhaxmarka iyo daaqii iyo biyihii la isla cabahay sidii yihiin, inuu shaqeeyay communique ku saabsanaa dhulka iyo waxyaabaha. dhanka kale wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in guddi ka kooban odayaasha dhaqanka oo ay garwadeyn ka tahay wasaaradda isugu iman doonaan si ay wax badan uga ogaadaan xaaladda deegaanadaasi. waxaa berri isku soo laaban doona insha allahu tacaala guddi ka kooban odayaasha deegaanka odayaasha dhaqanka oo uu hogaaminayo ugaas xiirey iyo wasaaradda arrimaha gudaha. waxaa si hoose loo sii geli doonaa tilmaamaha communiqueygii waafaqsan oo ay sii raacin doonto dawladda ayaa si hoose loo sii geli doonaa ayagana berrinta la deyn doonaa haddii aan la idmo. marka shirkanaga wuxuu ahaa shir nabadeed.